waa mar kale iyo dharaarta gabagabada u ah ololaha doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland ee magaalada Burco iyo xisbiga mucaaridka ah ee wadani taageerayaasha musharaxiinta injineer Axmed Maxamuud Cabdilaahi Fanax iyo Maxamed Xirsi Axmed Maxamed Case oo u taagan doorashada golaha wakiilada gobolka Togdheer iyo deegaanka ee degmada Burco ayaa fagaaraha xaafadda Sayladda ee magaalada Burco ku soo bandhigay cududooda taageero iyagoo ku labisan astaanta xisbiga wadani iyo kuwa gaarka u ah labada musharax madashan oo ay ku sugnaayeen madax dhaqameed odayaal mudan iyo taageerayaal tiro badan ayaa waxa ugu horeyn hadallo dardaaran iyo bogaadin ah ka jeediya waxgarad iyo mudan kale waxaynu maraynaa waqtigii farta waxa weeyaan waynu soo dhamaynay kuxlo orodkii iyo geedigii waxaan idinkala dardaarmayaa maalinta farta inaynaan isdhiganin inaynaan ka absaamin weeyaan waa inaynu u dagaalanno maalinta farta goobuhu way fara badan yihiin qof waliba waa inuu dadaalo waxaan arkaynaa sida quruxda badan ee qaayaha leh wax weeyaan taageerada hagar la'aanta oo la garab taagantihiin waxaan idin dambaysiinayaa ama waxaan idin kula dardaarmaynaa waxay maraysaa waqtigii ugu dambeeyey waxaynu maraynaa saacadihii ugu dambeeyey waxaan idinka codsanaynaa qof kastoo inaga midii inuu labanlaabo dadaalkii uu soo waday muddada dheer insha allahu biidmi waynu guulaysanaynaa halka aynu doonaynayna waynu gaadhi doonaa waxaan doonayaa inaan idiin sheego oo isku adkaysaan calaamadda halka la calaamadinayo haddii xariijintaa la sameeyo goobada aad afarta koone u dhaafto wuu gubtay codkaas wuu gubtay waxaan idinka codsanayaa taageerayaasha tirada badan ee haybadda leh ee sharafta badan ee halkan joogta ee macallimiin leh ee mutacallimiin leh ee aqoon-yahan leh ee baamushtar leh ee cuqaal leh ee sharafta badan waxaan ka codsanayaa inaydaan codka la halmaamin oo la seegin 360 iyo haanta astaanta oo ah Axmed Maxamuud Cabdilaahi Fanax iyo lambarka ah 306 ee Maxamed Case oo ah astaanta qofkan qoraalka garanaynina uu markuu galo meesha laga codeynayo ee lagu ridayo uu yiraahdo isaguna uu yiraahdo munaaqibka wadani u jooga iyo calaamadii ilaahay balla waxaan uma galnay inaan labadani soo saarno taynu waa ahdi galnay waa tiib mali sabatar Ismaaciil Xuseen waa taynu balla ku qaaday ballanka ninka baajiyow waxaad xagga ka qoratay xagga ilaahay beenaale labada xildhibaan aynu halkan u taaganahay cadceeda aynu soo halganay ee aynu doonaynay haddii la yiraahdo golayaasha inoo tagaan waa labada xildhibaan Maxamed Xirsi Axmed oo 306 uu yahay calaamadiisu iyo Axmed Fanax oo haanta biya garan waayay haanta caara lagu jiray iyo sodonka waxa inoo ballanaa labadeena xildhibaan oo gobolka Togdheer ugu bato codka waa labada dhinaynu doorano soo gabadhabaha ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu ilaahayna la qabto ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu inagu karaameeyo labadan doonayaa inaynu ballanka kala qaadanno baa la doonaya laba casho waqtigaynu soo cararaynay inaga xiga codkii baa inoo ballana laba casho dabadeed codkii baa inoo ballana waxaynu soo galnay tacab dheer baynu soo galnay oo waqti badan baynu shaqaynaynay waxaynu u baahannahay 31 May wixii aynu ku soo tabcaynay inay muuqdaan oo ka muuqdaan sanduuqa codka ay ka muuqdaan baynu u baahannahay doonayaa inaad midnimada imika ku taagantihiin aad sidaa u sii wadaan ilaa 31 May aad ku hubsataan oo aad soo saartaan xildhibaanada aynu isla ogayn ee halkaa ku qoran dhankooda labada musharax injineer Axmed Maxamuud Cabdilaahi Fanax iyo Maxamed Xirsi Axmed Maxamed Case ayaa uga mahadnaqay taageerayaashooda sida bilan ee ay isugu soo baxeen isla jeerkaana ku dardaaray inay codkooda ugu deeqaan 31 May
May oo ah dharaarta loo asteeyay codbixinta doorashada Somaliland ee wakiilada iyo deegaanka. safarkaasi waxaynu ka doonaynay baa 3 waxaan idinku boorinayaa safarkeenaas ka u dambeeya inaynu ka adkaano balan qaadaynaa dadkiina doorta insha Allah inaanu ka agdhawaano oo aanu dhageysano oo aanu saaxiib dhow la noqon jambeeyay culus 43 sano ayaa lagu ayaa Hargeysa ka horreysay gobolnimada haddana halkay maraysa waa garanaysaa Hargeysa ma diidanin laakiin waxaanu diidanaynaa burca hadho oo ay ka hadho xagga dawladda dhexe waxa laale wixii ay burca xaq u lahayd waa raadinaynaa qaabkaan u raadinay kastaba waa raadinaynaa burca waxay lahayd saydad ay cashuura ka soo gasho waxay lahayd airboon cashuura ka soo gasho 50 sano ka hor baa airboonka u shaqaynayay maanta wax u shidani ma jirto waxay noqotay qof kastoo burca tegay oo burca tegi jiray inuu Hargeysa u guuro arrintaas arrin sax maaha waxa weeye burca dadka waxa ka raray ma aha doonis ay burca ay nacayaan maahe waxa laale wixii mataqaanaa service ama dee hawlfudaynaha baa Hargeysa noqday waxaanu rajaynaynaa inaanu jaamacadaha xoolaha iyo wasaaradaha xoolaha iyo xanaanada halkan la keeno baasheed waxa weeye 306 waxaan mahad celinaynaa taageerayaashayada gudaha iyo dibadda meel ay joogaan waxaan uga mahad celinaynaa garab istaagga ayna garab istaageen ee ay noo hureen waqtigooda iyo noloshoodaba kuwaasoo doonaya 11 bisha May inay codkana siiyaan taageerayaasha ugu codka badan gobolka Togdheer soo rajadeenu sidaa maaha xildhibaanada golaha deegaankuna waxay ku yaaleen warqad gaara xildhibaanada golaha baarlamaankuna waxay ku yaaleen warqad gaara 31 May ballanteenu waa maxay waa haanta waa guulaysanaynaa waa Fahmi Kaysa Xirsi Bulsha TV Burco.